بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذكوان ما يلو عدي لبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفي انت باهن الله ديقو انت بكت الله بكسيو انت دمتي الله ونحرستو والدينتان الله ونحرستان نغير الله نوغدا ونحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta saddex qodob baan ka hadlayaa. qodobka koowaad waa ra'iisul wasaare Xamse iyo arrimo ku saabsan. qodobka labaad Turkiga iyo xiriirkii uu la lahaa Israa'iil. qodobka saddexaad Biixi oo baqdinta uu ka qabo doorashada darteed arrimo la yaab la sameeyay kelmadan ka warnaya. YouTube-ka nagala xiriira. Facebook cadaadis badan buu saaray, xataa view-ga soo saari mayo, dadkana tusi mayo Facebook-geena. marka YouTube-ka u bata dhankaas xiriirkiina u badiya. waxa igu taqaanaan inaanan cidna cid ka jeclaysan. qofkii khaldan khaladkiisa aan sheego, qofkii saxan saxdiisa aan sheego, qofkii ammaan leh aan ammaano, qofkii dhaliil leh aan dhaliilo. dhaqankayga wey, waa diin. ilaahay baa amarkaas baxshay. cadaalad baa loo baahan yahay. ninka la yiraahdo Xamse horay tooshkeenu uma qaban isaga iyo musuq. mar baan kelmad ka sheegay hal safar. waxaan idiin sheegi doonaa ilaa 4 safar oo ra'iisul wasaaruhu qaarna galay, qaarna uu rabo hadda inuu galo, iyo inuu ka mid yahay dadka boobaya hantida ummadda Soomaaliyeed. arrintaasi waa arrin la yaab leh. runtii ninkaan nin wadaada loo qabay, dee wadaadnimadaaba hadda la iska soo galay. wuxuu dhan wadaaday ahaayeen. waxa wax boobayana waa wadaadadii. waxaa laga caddeeyay 9 bilood wasaaradihii inaan la siin wixii la oran jiray adeegyada ama running cost wixii la oran jiray inaan la siin 9 bilood. sababtuna ay tahay lacagtii la heli karayba waxaa boobaya labada xafiis ee dowladda ugu sarreeya, ra'iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka oo xafiis ah iyo madaxweynuhu xafiis ah. labada xafiis waxa ugu badan oo dhaqaalihii lagu lunsanayana waa safar, sahay safar. waxaa la sheegay mushaaraadkii shaqaalaha bishaan inaan weli la bixin. shaqaalaha rayidka ah bishu maanta waa 3, weli lama bixin. bisha dambe baqdin baa jirta. bil kasta xafiiska ra'iisul wasaaruhu iyo ku-xigeenkiisa waxay lacag ku qaataan dib u habayn iyo xafiiska hagaajin iyo wanaajin. waxaan idin caddaynayaa xafiiskaas ninkii waagii baahana loo bixiyey oo ku caanbaxay dihaalka, anigu dihaal qaben baan u aqaanay, oo ka sarreeya dihaalku waa ka sarreeya agaajada, iyo kan hadda jooga oo isna 2 sano maraya, midkoodna inuusan bakeeri ku soo darin baan idin caddaynaya. waxaa xafiiskaas qalabeeyey oo dhisay oo isku dabariday oo sidaa u galay oo quruxda uu leeyahay iyo hanaankiisaas saa u fariisiyey ninkii la oran jiray ra'iisul wasaare Khayre. cid ka dambayso koob ku dartay ma jirto. maalin walbana wuxuu lacag ku qaataa kan hadda jooga iyo kuwii ka horreeyaba. boobka hantidana lagu qaataa ummadda Soomaaliyeed ay leedahay lagu booba. waxaan xafiiskan waxaan ku samaynaynaa dib u habayn. xafiiskii baa loo adeegay, xafiiskii baa wax loo bedelay, waxna kama jiraan. waxaan idiin sheegayaa 4 safar oo ra'iisul wasaaruhu uu galay. kan ugu lacagta badan wuxuu ahaa safarkii uu ku galay Mareykanka. 450,000 ayuu kala baxay khasnada dowladda. safar wuxuu ku aaday maalin dhaweyd baan sheegay, tuulo aadan yabaan la yiraahdo, half an hour u jirta magaalada Muqdisho. $150,000 buu qaatay. safar uu isagu reerkiisa ku aaday oo Masar ah. isagu reerkiisa waa private business. 60,000 oo xoog ah buu qaatay oo inta lagu diriray uu xoog ku qaatay. hadda bisha 6deedu baxaya Kenya u socda. wuxuu khasnada dowladda xoog kagala baxay $260,000. waa 6da bisha Kenya u socda safar ku aaday. $260,000 buu qaatay.
madaxweynuhu intaa in la eg buu wuxuu qaatay markii ugu yaraado 400,000 iyo 300,000 iyo half a million ah ayuu wuxuu qaatay 71 jeer. waxaa kaloo rabaa inaan sheego kelmad waxaa jirtay uu ninka Uganda haystaa sheegay oo uu leeyahay Soomaaliya dadkeeda iskala qadaysa dadku shacabka ah dadka waa la isla nool yahay oo cuntada ka soo qaadkan kaasi saasa lagu wada nool yahay waxa ma soo saarto deeqaha la siiyay cuntaa. waxaan rabaa inaan caalamka u cadeeyo ummadda Soomaaliya oo shacabka ah anaga waxba nama soo gaaraan deeqna la siiyo dibadda ka timaada nama soo gaarto qaybna iyaga mushahar u qaata inta kalena sidaas ay u boobaan oo iyaga kala goosta shacabka wax gaaro oo deeqa oo dibadda ka timaada ma jirto. mashaariic yar yar baa jirto dad ka shaqaale ka yahay oo ka qaad qaato iyagana goortay boobi waayaan wax xiraan waa joojiyaan soo ma arkays dadku actually iyaga canshuur bixiya waxbay soo saaraan. waxaa rabaa ninkii Uganda in loo sheego Soomaalidu wax way soo saartaay corruption dusha ah baabaha ka dhigayo lacagta khasnada ku jirto la boobaya waa lacag ummadda Soomaaliyeed laga ururiyay oo canshuur laga qaaday oo shacabkaas laga boobay. waxaa kaloo la ii sheegay fiqi oo ka cabanaya sahay safar layma siiyo shaqada la ii dhiibayna waxay rabtaa safaro iyo hoteelo. wasiirkii igu horeeyana credit kaarkiisu isticmaali jiro in lacag haysto ahaa anigu bahashaan ma sii wadi karo leh na waa la ii sheegay. kelmadaas marka ra'iisul wasaare Xamse damiin ma aha markay timaado musuqa wuxuu ka mid yahay raggiisa waana ugu horeeya horey baan u sheegay madaxweynuhu waa example-kiisi wuxuu noqday musuq nin kasto isaga la shaqeeyaa marka wuxuu ku shaqeysanayaa musuq laysma eedayn karo. marka madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha ma oran karo maxaa u qaadatay lacagtaadu maxaa u qaadatay wey ceebtaasaa meesha taalla ummaddii Soomaaliyeedna la hartay. wuxuu yiri ra'iisul wasaaruhu doorashan qabanaya su'aalaan weydiiyey doorashada ujeedada laga leeyahay waa in la yiraahdo waqti baan kororsanaynaa 2 sano ka dhamaatay laba hadda u haray iyagii maamul goboleedyadii wali ma bilaabin processka ay kaga heshiin lahaayeen xubnihii doorashooyinka qaban lahaa. wuxuu rabaa inuu ku laaluusho madaxweynuhu 2 sano oo dheeraada inuu ugu daro oo aysan mandate u haysan maamul goboleedyada isaguna uu yiraahdo cusboon ogolaada inaan qof iyo cod baan aadayaa si kale oo doorasho ku dhacaysa ma jirto aan iraahdo ogolaada oo ay markaa u approve gareeyaan. goorma la tababarayaa shaqaalahaas haddii lagu heshiiyo imisay qaadanaysaa horta in laga heshiiyo 6 bilood 7 bilood sanad kala tagaya inta laga heshiinayo inta la magacaabayo iyagii tababar bay rabaan kuwii uu kala cayriyay ilaa intaasoo wadan bay tageen intaasoo milyan oo dollar baa lagu kharash gareeyay oo ay soo barteen Afghanistan Syria Iraq meelaha balaayadu ka dhacday oo dhan bay tageen oo ay soo sahamiyeen sida doorasho looga qaban karo dhul dagaal ragaadiyay iyagoo khibradaas leh baa dibadda loo saaray. kuwaanu imisay khibrad kasbanayaan hadday khibrad kasbadaan haddana field officerski kuwa iyaga ka hooseeyo maamul goboleedyada ka shaqeynayay imisay iyaguna tababarayaan imisay dadka la wacyi gelinaya oo leed isdiiwaan gelintii imisay soconaysaa goormaa la decide garaynaya ama la go'aaminaya hebel baa citizen iyo hebel maaha. ciyaarta intay iska daysaan Hamzow 3 ii soo xulo aan mid ka doortay cidi ka yeelmayso waa ogtahay teendadii u diyaar garow adiga Xasanba teendada u diyaar garooba waa lama huraan teendadu idinka dayacay waqtigiini idinka burburiyay doorashadii guddigii doorashada adigu aad dooratay Xasanow 2015 buu ku daayay farmaajo uusan ka taaban hal qof kuma darin adaa lagu daayay maxaa ku geeyay inaad kala dirtood ayriso haddaan wax ka khaldanayn. saasoo kale qodobka intaasan ka oranaya Turki ayaa xiriirka u jaray Israa'iil ganacsigii dhammaan ay wada lahaayeen joojiyay isla markaasna ku biiray dacwadda ay South Africa ka wado oo ka dhanka ah Israa'iil oo ay ka wado maxkamadda caalamiga oo mar dhow laga yaabo in la judge gareeyo Netanyahu oo war criminal lagu judge gareeyo genocide-na lagu cadeeyo. wuxuu madaxweynaha Turkigu sheegay in wadamada Mareykanka iyo Yurubiyaanku aysan ba awood lahayn oo siyaasiyiintoodii intay maal gashatay Israa'iil aysan kelmad ka soo qaadi karin ajandaha ay wadaan waa ajandaha Israa'iil. waxaad aragtaan dhalinyaradii ardayda ahayd oo shacabka ahayd baa kacday social media kiciyay lama caburin karo
maxaan ku idhahdaa Facebook su annaga hadda noo caburinayo afka noo hayo uma qaban karaan ooday kaga soo qaadeen meelo badan oo waxaa jira wax lagu wadaago ay ka mid tahay WhatsApp ay ka mid tahay Telegram ay ka mid tahay ooday ka soo qaadeen arrintaas iyada ah marka waxay keentay in shacabkii kacaan shacabkii bay marka hadda waxay kula dirayaan free speechkii ma mudaharaadi kartid haddaad Israa'iil ka soo horjeedo halkaasay maraysaa qodobkaasna intaasaan ka oranaya xilligaas uu Turkigu xiriirka u jarayo bay adna waxay leedahay annaga ictiraafayna waxaan maqli jiray raximallahu imra'an carafa qadra nafsi wa intaha ilaa ma qadar qof awoodiisa gartay oo markaa awoodiisa ku dhaqmay ilaahay ha u naxariisto iyadoo aan waxba islahayn oo tacbaana bay waxay leedahay annaga ictiraafayna Israa'iil oo la shaqaysanayna arrintaasna intaasaan ka oranaya qodobka saddexaad bixi doorashada soo dhawaatay buufis baa ku kacay balaa baalihiisa yaacday qaracan buu noqday wuxuu isticmaalay ciidamadii nuux taani baa wuxuu soo saaray qoraal dheer iyo warbixin dheer oo uu kaga hadlayo jawiga iyo dalka iyo qaranka uu kaga hadlayo soo ma arkaysi markaas wuxuu leeyahay isagoo Mareykanka u cabanaya xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo 10 sano la soo dhaafay waxay tababarayeen ciidamo maleeshiyaad oo loogu talagalay in Soomaaliland burburiyaan lacagtan idinka bixinay waa marka labaade laascaanood waxaa qabsaday argagixiso iyo magalaysa maleeshiyaad aan la garanayn meel ka yimaadeen marka xasiloonidii farahay ka baxday awal waa xasiloonay marka saddexaade ururka ama xisbiga la yiraahdo wadani waa xisbi idin necab adaatiyin westernka oo jecel bariga oo raba inuu China base ka siiyo Somaliland marka annagana garab istaaga aqli xumada inta la eg ninkaas baa wuxuu leeyahay madaxweynaha ninka aan fahmi karin war Mareykanku ma xoolaa ma sidaadoo kale xooliyiin waxay u qabtaa inay iska yeelayaan waxa tiraahdo maxaa ciidamada geliyay arrimaha siyaasadda doorashadu way dhacaysaa muusow adiguna qorax galbeed baa tahay u diyaar garow safarkaagii iyo meeshaad aadi lahayd iyo saad u noolaan lahayd ilaa kuma noolaan kartid adoo shacaba meeshii waxba haysa soo qallajine dadkana ha najaasayne waxaad yeeshaa istiyaari oo safarkaagii iyo meeshaad u bixi lahayd isu diyaari waxaa ka mid ah waxyaabuhu ku dooday Soomaaliya lacagta hawada nama siiso wax nagama siiso Kenya waaga haysatay wax ma ka siin jirto waa su'aal waa marka labaade maxaa lacagaha kale u sheegi weyday oo aad Soomaaliya ka qaadataan wasaaradda maaliyaddu bil kasta lacag bay ka qaadataa Soomaaliya wayna saxiixdaa meesha cloud baa loo sameeyay wasaaradda maaliyadda meel lagu report gareeyo oo cloud ah anagu u report gareynay halka galiya leeyahay meesha galiya meeshay geliyaan Soomaaliya meeshay kala baxdaa waa qortaa reportkaas la gudbiyaa khalaas qayb bay ka tahay Soomaaliya deeqaha la siiyo qaybtooda ka qaataan laakiin waxaan rabaa inaan sheego Soomaaliya deeqa aad u badan baa la sheegaa in la siiyo hal shilin oo dadka shacabka gaara ma jiro nimankaas tuugta ah oo meel walba fadhiya oo gobol walba madaxda ka ah baa qaato oo qaybsada iyaga booba qaarkood waxa weey waxba kama tagaan waa xaabqaad waxba reebimayaan ha wax loogu imaanaya ma jiro mid nool mood iyo nool midna loogu imaan maayo mawjada qaar baa wax ka harharaan laakiin intooda badan waa niman soo shaqo tagay iyaga qoysaskoodii iyo caruurahoodii iyo wax isgarab yaacaya ummadda Soomaaliyeed markii kuwa alla ka qabto parasite-ka oo yabaacda oo yaacaya oo cuntada u socda oo dawladnimo u socon bay dawladnimo u jihaysan doontaa biidnillahi tacaala waa ka baxaynaa hal si adkaysto waa iyaama cagaha dhulka lagu sii hayay geesinimadu intaasaan oranayo billahi tawfiiq